guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Waxaad sugaysay 9 bilood oo dheer in ubadkaagu yaraa ee qaaliga ku ahaa uu da'dan kuu gaaro, balse hadda oo halkan joogo waxaa laga yaabaa inaad dareento inaadan isku hubin sida ubadkaaga aad u daryeeli lahayd. Dareenkaas waa mid caadi u ah kuwa marka ugu horeysa waalidiin noqonaya iyo waalidiintii kale oo horey carruurta u korsaday. Marka koowaad, shaqada daryeelista dhallaanku waxay noqon kartaa mid ku siisa dareen baaxad weyn. Haddii marnaba aadan horay ubad markaa dhashay qaban, waxaa jira 2 shay oo muhiim ku ah inaad ogaato. Kan koowaad, ka hor inta aadan dhallaanka qaban, mar kastaaba gacmahaaga iska dhaq. Nidaamka difaaca jirka ee dhallaanka weli ma adkaan, sidaa awgeed si sahlan ayuu xanuun uga qaadi karaa jeermiska. Iska xaqiiji in gacmahaaga ay nadiif yihiin oo marnaba farahaaga wiilkaaga afka ha u gelin. Tan labaad, mar kastaaba marka aad hayso gacanta ku qaba dhallaanka madaxeeda iyo qoorteeda. Weli ma qabto muruq ku filan oo ay madaxeeda kor ugu qaban karto. Madaxa u qaba goorta aad qaadayso oo goorta aad dhigayso madaxa ka taageer. Haddii fikirka xafaayado wasakh ah ay kaa keenayso in aad orado, isu diyaari. Ilmaha dhawaan dhashay waxay u baahan yihiin in maalintiiba 10 jeer xafaayadda laga beddelo. Taas waxay ka dhigaysaa in ka badan 3,000 xafaayadood intaan la gaarin sanad guuradeeda koobaad. Waxaa muhiim ah in dhallaanka xafaayadda laga beddelo goorta uu qoyan yahay ama marka ay ku saxarooto si looga hortago firiirac xafaayadda iyo caabuqa. Ka hor inta aadan beddelin xafaayadda dhallaanka, waxaad iska xaqiijisaa in wax kastoo aad u baahan tahay kuu dhow yihiin. Mar walba hal gacan ubadka ku qabo oo marnaba dhallaanka uga taga miiska looga beddelo, xitaa haddii uu xiran yahay suunka. Haddii uu jiro wax aad ilowday, cunuga horay u qaad inta aad ka soo qabanayso. Toddobaadyada ugu horreeya, ubadkaaga wuxuu u baahnaan doonaa qubays isbuunyo lagu qubaynayo ilaa iyo xuduntiisa iyo gudniinkiisa uu kaga bogsanayo. Canuga seexi meel ammaan ah, meel siman oo qol diiran oo shukumaan qalalan ku dabool. Ka bilow inaad dhaqdo ubadka indhihiisa iyo wejigiisa, kadibna timaha shaambo uga dhaq. Hal qayb oo jirkeeda ka mid ah daahroog marka aad u qubaynayso, adiga oo ka bilaabaya qoorta ilaa iyo faraha. Dhaqidda jirkeeda hoose ugu dambeysii. Iska xaqiiji in meel kasta oo jirka ka mid ah markiiba aad iska qallajiso oo kadibna shukumaan qalalan ku daboosho. Ha daboolin wejiga dhallaanka. Isticmaal tirtiraha dhallaanka ama qoriga suufka ee dhagaha la isaga nadiifiyo, adiga oo alcohol ku taabanayo oo si degan ugu wareejiya xudunta si aad ugu nadiifiso. Haddii aad ku aragto guduudasho ama meel malax ka soo baxaysa, ama haddii dhallaanku uu oynayo marka aad taabato barta xudunta, takhtarkaaga kala hadal. Haddii wiilkaaga la guday, meesha la guday markasta oo aad xafaayadda ka beddesho ka mari biyo diiran. Jeelka petroleum-ka ka samaysan u mari si markaa xafaayadda aysan ugu dhegin. Haddii meesha ay gaduudato, bararto ama ay malaxaysato, takhtarkaaga la xiriir. Dhallaanka goorta ay wax cunayaan, hawo ayay dhunjiyaan oo waxay u baahan yihiin in inta badan la daacsiiyo. Ubadka korkor u fariisi oo madaxiisa garabka saaro. Madaxa ka qabo oo si degan dusha uga taabo. Mar labaad,
dhallaanka daacsii marka cuntada uu dhammeeyo oo kadibna ha sii fadhiyo 10 ilaa iyo 15 daqiiqadood. Ilmaha dhawaan dhashay maalintii waxay hurdaan ilaa 16 saacadood, laakiin markiiba 1 saac ama 2 saac kaliya ayay hurdaan. Ubadkaaga ha ka filan in habeenkii oo dhan ay hurdaan ilaa iyo 3 bilood jirsato ilaa laga gaaro. Run ahaantii haddii ay sii hurdo in ka badan 4 saacadood markiiba, waxaad u baahnaan doontaa inaad hurdada ka toosiso oo aad quudiso. Ilaa laga gaarayo dhalashadeeda koowaad, dhammaan carruurta faya qabta oo dhan waa in dhabar loo seexiyaa, xitaa marka ay wax yar kaliya hurdayso. Carruurtu marnaba ma ahan inay ku seexdaan sariirta dadka waaweyn ama soofada. Waa in la seexiyaa sariir seexashada ku ammaan ah oo leh joodari adag oo maro ku dheggan ku daboolan. Ka soo saar dhammaan barkinta, bustayaalka, boombalada iyo wax kale oo kasta. Waxyaabaha waxay dabooli karaan wejiga dhallaanka oo in ay neefta ku xirto ayay halis u geli kartaa. Hadda waa taqaanaa sida ubadkaaga loo qabto, loo daacsiiyo, sida xafaayadda looga bedelo iyo sida loogu qubeeyo. Laakiin midda ugu muhiimsan ee aad qaban karto si ubadkaaga aad uga caawiso inuu ku koro si caafimaadaysan oo si wanaagsan aad isugu xirtaan. Ubadkaaga wuxuu u baahan yahay jacaylkaaga, adigoo jacaylkaasi ugu gudbiya taabashada, la hadalka, la heesidda iyo dhoolla caddaynta. Ubadkaaga waxaad bilaabi kartaa in isla markiiba aad isfahantaan adiga oo qabta ama naasnuujin ku bilaaba. Haynta aad haynayso ubadkaaga way dejinaysaa oo waxay ka caawinaysaa inuu ammaan dareemo. Ubadkaaga wuxuu jecel yahay inuu dhagaysto goorta aad ula hadlayso iyo goorta aad heesayso. Waxaa laga yaabaa in qabsashadaada, la hadalkaaga ama u heesida aad u heesaysid ay sidoo kale dejiso goorta ubadkaaga uu ooynayo. Carruurta oo dhan way ooyaan goorta ay hayso gaajo, caajis, cabsi, u baahan yihiin inay daacsadaan, markay u baahan yihiin in xafaayad laga bedelo ama ay doonayaan in la qabto. Oohinta ubadkaaga ayaa ah dariiqa uu adiga kugula xiriirayo. Intayba aad waqti badan aad ilmaha cusub aad ula qaadanayso, waxa ay siyaadinaysaa in aad fahmi doonto luqadda uu kugula hadlayo. Waxaad kari doontaa in si dhaqso ah aad uga jawaab celiso baahidiisa, oo oohintiisana way yaraan doontaa. Daryeelista ilmaha sabiga ah marka ugu horreysa qofka way ka tambadisaa, laakiin waqti yar kadib waxaad bilaabi doontaa in aad u qubayso, xafaayadda aad ka beddesho oo si sahlan aad u dejiso. Oo waxaad helaysaa waqti badan oo aad uga bogato dhoolla caddaynteeda iyo dheeldheelkeeda inta ay ladnaan iyo farxad ku sii korayso. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.